بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوين حاف شيخ شاكر مدح حكومة قولها وزير هذا الدولة الفدرالية halkan nagala jooga iyo xildhibaanada labada aqalka sare iyo golaha shacabka golaha fulinta dowlad goboleedka galmudug iyo xildhibaanadooda salaadiinta ogaasiyada nabadoonada ciidamada amniga oo noo suurtageliyay inaan caawa halkan ku kulanno shacabka halkan fadhiya ee sharafta badan gobolada waa bari galmudug iyo sida wanaagsan ee runtii heesaha qiirada leh oo wadaniyada ay ku jirto ay noogu sameeyeen kooxda Bambeyda bahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Allah ma hadskale ilaahayna khalqay oo awood lahaa oo noo suurtageliyay intaanoo qof oo meelo kala duwan ka kala yimid noo fududay safarkii anagoo caafimaad qaba halkan aan wada fadhino ilaahay ina siiyay naxariista iyo wanaaga iyo quruxda iyo wax kasta aan haysano waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka reer dhuusamareeb sida sharafta badan ee walaaltinimada leh ee nagu soo dhaweeyeen waxaa ka muuqatay runtii shucuur wadaniyad iyo shucuur waxaa ka muuqatay dowlad jacayl aad iyo aad runtii kaga mahad celinayna sida wanaagsan aad u martigeliseen intaanu erga ah oo 700 kor u dhaafaysa iyo guddiga dib u heshiisiinta sida wanaagsan aad u soorteen aad u soo dhaweyseen ee u dareemeen inay joogaan hooygooda gurigooda aad iyo aad runtii uga mahad celinayna shacabka magaaladan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha oo runtii juhdi xoog la geliyay shaqo badanna runtii ka qabtay muddo 2 bilood really ku dhowna halkan joogay oo meel walba tagay haday tahay tuulo haday tahay magaalo la hadlay oo dhaqameedyada halkan fadhiya qaarkood ama intooda badan la hadlay dhalinyarada dhiirigeliyay u macneeyay sababta loogu baahan yahay dib u heshiisiin iyo sababta loogu baahan yahay in dib loo dhiso dowladda aan haysano ee galmudug aad iyo aad runtii aan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan uga shaqeeyay ciidamada dhiirigelintooda isku dhafkooda diiwaan gelintooda dhinac walbaba iyo in magaaladan ay noqoto runtii isaga iyo sheekh shaakir ka wada shaqeeyaan inay magaaladan noqoto magaalo ummadoo dhan ay wada leedahay cid walbana ay martigelin karto aad iyo aad runtii shaqada wanaagsan oo qabtay aan uga mahad celinay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalkay madaxweyne xaaf runtii muddadii aan wada shaqeynay colorful iyo ahayd waa isku jirtay waqti fiicanna waa soo qaadanay bini aadamkuna khasbiyan marka la wada shaqeeyo mugdi waa imaan karaa laakiin waxaan markhaati ka kacayaa aan markhaati furayaa inuu yahay oday Soomaaliyeed mas'uul inuu yahay nabadoon inuu yahay mideeye inuu yahay tanaasula inuu yahay oo marka uu arko xaaladdu inay sidaas u cakiran tahay u tanaasula shacabkiisa qofka bini aadankana waxa lagu cabiraa legacies ama wuxuu ka tago waxa lagu cabiraa marka uu ka tagayo xukunka yaa lagu cabiraa iyo sida uu uga tago tanaasulku waa geesinimo qofka aan tanaasulin waxaan u aqaanaa inuu fulay macnaheedu waxay tahay tanaasulka markuu arko qofku inay xaaladdu cakiran tahay wixii uu abuuray ama wixii uu dhisay ee burbur ku socoto inuu yiraahdo waqtigeyga waa dhamaaday hawshan dadkii ku habooneed ha loo gudbiyo
aad iyo aad yuu runtii ugu mahadsan yahay inuu runtii kusoo wareejiyey hawshii dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinaya abaalkeeda iyo sharafkeedana isagaas kale. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ahlu sunno. waa xaqiiqa ummaddu si sahlan iyo wax ku iloobaan. magaaladan halkaan annagu nabadaan uma fadhin lahayn haddaysna ahlu sunno ahayn. dad badan baa ka shahiiday sidii magaaladan ay nabad u ahaan lahayd iyo nawaaxiga galmudug inteeda badan. waxay u istaageen in khawaarijtu aysan soo gaarin meeshaan. waxaan ognahay magaaladan 4 jeer inay isku dayeen khawaarijtu inay qabsadaan, laakiin ay ku guulaysan waayeen hal maalin oo dhammaystiran inay haystaan. waxaa lagu gaaray arrintaas iskaashi, wadajir iyo midnimo shacabka reer maxaan ku raacdaa galmudug, oo la iska kaashado oo la iskaga soo baxo magaalooyinka u dhow ilaa haddana ay kusoo noqon waayeen ama ay haweysan waayeen. intaas waxaa dheer khayr allaha siiyo xaaf inuu u garaabay, uu arkay muhiimadda ay leeyihiin ahlu sunna, uuna kusoo daray dowladnimada. aniguna markii la i doortay oo aan calimasaarka la sameynaya aan ku casumay xamar si aan u muujiyo ama aan ugu abaalgudno hawshii wanaagsanayd ay ka soo qabteen gobolkan. isaguna sheekh shaakir wuxuu ku guulaystay inuu yidhaahdo dowladdii federaalkaan ku wareejinaynaa amnigii magaaladan, si qof walba uu dareemo in magaaladan la wada leeyahay, ee magaalo soomaaliya tahay, ee caasimadii galmudug tahay, qof walba uu ku qabi karo kalsooni inuu joogo. aad iyo aad yaan runtii aan kaga mahad celinaya. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga dib u heshisiinta, golaha dib u heshisiinta. juhdiga xoogga leh ay geliyeen, waktiga ballaaran ay geliyeen, meel walba ay tageen, cid walba ay la hadleen, ay dhiirigeliyeen qof walba inuu qayb ka noqdo horumarinta iyo xasiloonida gobolkan. runtii wakti badan iyay geliyeen, dulqaad badan iyay sameeyeen. caawana waa maqlayseen bayaankii ay soo saareen iyo intaanoo qof ay isu keeneen. wax sahlan ma aha. aad iyo aad yaan runtii shaqada wanaagsan aad qabateen aan idinkugu hambalyeynanaa, aan idinkugu mahad celinaynaa. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo salaadiinta halkan fadhida, ugaasyada, nabadoonada, oo runtii ajiibay kana jawaabay codsigii golaha dib u heshisiinta iyo dowladda federaalka in aan rabno dadka soomaaliyeed ee waalaha ah. waxaa la yihahdaa 11 beelood, laakiin aniga waxay ii yihiin hal beel iyo ii yihiin inay aqbalaan, ee isu yimaadaan, oo la wada hadlo, oo la heshiiyo. sida halkudhig halkan ku taalla ay leedahay aan wada hadalno waana heshiino. runtii inaad wakti gelisaan, guryihiina kasoo tagtaan, noloshiina kasoo tagtaan, sidii gobolkan u noqon lahaa gobol xasiloon oo runtii u diyaar garooba fayskii labaad oo ah doorashada. mar alla markii la yaabo waxaa loo noqdaa oday dhaqameedyada loo noqdaa. waana ka jawaabteen. allah ajri xasanaad ka siiyo. sharaf weyn ayay runtii ii tahay inaan kala soo qayb galo caawa xafladan iyo munaasabadan sharafta badan aan kusoo gabagabaynayno ama aan kusoo xirayno shirweynihii dib u heshisiinta ee galmudug. aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahay, aan kala soo qayb galo, oo aan indhehay ku arko dadka reer galmudug siday u diyaarsan yihiin ama ugu diyaar garoobeen inay isu yimaadaan oo isqaataan, oo ay walaaloobaan, oo ay ku heshiiyaan sidii wax u qaybsan lahaayeen, isu maamuli lahaayeen. haddaan isu imaano oo dadku isu yimaado oo la wada hadlo, waxaa ka soo baxaya wax wanaagsan oo idinka ma aha ubadkeenna iyo waxay sii dhalaan mustaqbal fiican ama mustaqbal wanaagsan siin kara. dib u heshisiintu waa hala wada noolaado wey. ummaddu ha wada noolaato. qof keligiis noolaan kara ma jiro. magaaladan kama maaranto gurceel, gurceel kama maaranto balanballe, balanballe kama maaranto xeraale, xeraale cadaade iyo caabuda kama maaranto, iyo
maxaan ku yiraahdaa gaalkacyo waa la isu wada baahan yahay marka in aan is ogolaano oo aan ogolaano inaan wada noolaano way waxa mustaqbalkeena ku jiro qof gaar u taagnaan kara ma laha dib u heshiisiintu waa process waa wax socda waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn maxaa yeelay bini aadan baa leeyahay khilaafaad waa imaan waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo waxa wanaagsan ay kasoo dhex bixiyaan oo ummadda midayn kara ama isu keeni kara aniga kolleyga khibraddeeda markaan idinkaga warramo intaan ka qayb galay ama aan qayb ka ahaa dib u heshiisiinta 10 sano ka hor waxay ahayd anigoo bil prime minister ahaa yaa gaalkacyo waxaa ka dhacay maxaan ku raahdaa galmudugtii hore iyo xibin iyo xeeb yaa isku hub qaatay dhib baa dhacay dadaan waxba galabsan yaa la laayay arrin kasii horeysana waa jirtay oo hore loogu dul qaatay markaan anigu waxaan aaminsan xitaa markaasay dadka ka hub badnaayeen waqtiga hadda la joogo waxay isu diyaarsadeen ciidamo aad u fara badan hadduu dagaalkaas dhici lahaana waa lagu baabi'i lahaa si aad iyo aad yaa loogu baabi'i lahaa maxaa yeelay temperatureka xaaladdu meesha maraysay meel aad u xun ayay ahayd waxaan soo dirnay guddi yaan soo dirnay guddigaasna runtii wuxuu ahaa guddi ugu horreeyey ee arrintaasoo kala dhacda loo soo diro oo dadka dhexdhexaadiya guddigii shaqo fiican bay qabteen ajar iyo xasanaad allah ka siiyo waxaa caawiyey labadii madaxweyne xibin iyo xeeb iyo galmudugtii hore yaa caawiyey arrintii waa la soo afjaray dhaqaalo badanna waa ku bixinay si xaaladii dhibkii loo yareeyo ilaahay waa nagu guuleeyey isla markaas bilo ka bacdi waxaa dhacay galmudugtii hore iyo puntland yaa haddana isku dhuftay xoogaa way iska laayeen iyagoo isu hub aruursanayay yaan haddana guddigii mid lamid ah yaan haddana soo dirnay guddigaasi sidaasoo kale u shaqeeyey labadii beelood ee waalaha ahaa ee meeshaas deganaa ilaahay waa kala baajiyey dhib ma dhicin inkastoo dee dhibab kale uu dhici doono kadib laakiin markaasi xamaasadda siday ahayd iyo xaalad siday ahayd waa ka degtay halkaasna waxaa ka yimid dib u heshiisiin iyo dadka in la walaalayo waxa igu soo xigtay marka socdaalkaygii halkan aan ku imid oo aad halkan igu soo dhaweyseen oo ahaa socdaalkii dheeraa ee dib u heshiisiinta oo aan dib ugu noqonay meeshii aan kasoo bilaabnay oo ahayd gaalkacyo oo kala xirnayd oo labada shacab oo waalaha ah aanan soo gudbaynin biyaha xitaa aysan kala qaadinayn eriyada u dhowna ay tahay eriyada aan la deganayn oo guryuhu burbursan yihiin meeshaasna waxaa ahaan jirta baa suuqii faras magaalaha ahaa ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan odayaal u sameyno 60 ah dib u heshiisiin u sameyno khayr allaha siiye taliyahaygii markaas ciidanka xoogga gorod yaa meeshaas wuxuu joogay muddo 2 bilood iyo bar ah yuu joogay oo ka shaqeynayay sidii dadkaas waalaha uu walaaleyn lahaa dhagaxdii xunxunka ah dadka kala hayay waa laga qaaday ilaa hadda dadkiisii bay waala u yihiin oo dhibaato kama dhicin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dhibaatada ka ilaaliyo dadkaas waalaha ah waxaa horey Soomaali u oran jirtay kugu dhimay ama kaa dhimay wiilkaas dhinta wuxuu ka dhintay cid walba ka dhintay marka waa dhici kartaa hal qof oo tuuga wax dila shabaab soo dhunta oo qof dila waa dhici kartaa laakiin dagaalkii zuuga iyo baasuukaha iyo BKM-ka iyo muxuu ahaa maxaan ku rahdaa hubkii cuslaa ee la isku adeegsan jiray oo markii faraha isla galo 50 qof 60 qof ay ku nafwaay jirtay ma jirto alxamdulillah ilaahina ka badbaadiyo caabud waa oo ognahay magaalo maxaan ku rahdaa kortay oo runtii population badan u degan yahay intii dagaalka sokeeye ka dhacay oo kala xirneyd oo 4 qaybood u kala xirneyd muddo 7 sano ah inaan tagnay oo iyagana aan odayaal guddi aan u sameynay
maalintii laga bilaabo ilaa haddana waxba kama dhicin alxamdulilah. dadkiina waa isku furmeen, waa wada nool yihiin, dabka iyo waa kala qaataan iyo sokorta iyo cusbada iyo waa kala adeegtaan. ilaahayna waxaan uga baryaynaa nabaddaas inuu u ziyaadiyo. xeraale alxamdulilah waa bilownay, laakiin ra-iisul wasaaraha soo afjaray. insha allah waxaan rajeynaynaa iyada naftigeeda dadka waalaha oo wada degan xeraale oo walaalaha iyagoo naftigooda ilaahay sharta ka qaado oo dhib dambe aysan arag, dhig dambena uusan ku daadan. intaas waxaa dheer magaalada Marka oo muddo 30 sano ah lagu dagaalamayo oo laga qaxay oo laba saf kala ahayd, inaan iyadana ku guulaysan ilaahay nagu guuleeyay dadkaas waalaha oo halkaas ku dagaalayay muddada dheer, inaan isku dhafnay ciidankii dagaalamayay 30 sano oo aan walaalaynay. haddana ay nabad tahay, ilaahayna ha u ziyaadiyo nabaddaas. hal kaftanaan ku darayaa, waxaa jira isbitaal xamar ku yaallo oo aada uga shaqeeya howlaha dhaawacyada iyo lafaha jaba iyo dagaalada wixii la xiriira. marka wuxuu igu yidhi nin dhakhtaraan arkay, wuxuu yidhi niyahu sidii aad uga tag madaxweynuhu sidaad uga timid meeshii gobolada dhexe dakhligeeni waa yaraaday, waaba kici rabnaaba hadda, dowladdu mana caawin kartaa. markaasaa waxaan ku yidhi maxaa dhacay haddii aan tegay meeshaas, maxaa ka qoseeya businesskaaga iyo cisbitaalkaaga? wuxuu yidhi meeshaas kheyraa noogu jirayo, dad badanaa nooga imaan jiray, bishii markay ugu yartahay 60 qof oo dhaawaca noo imaan jirtay. hadda 1 iyo 2 qof noo yimaada oo tuuga soo dishay. marka wixii naga khasaaray, lacagta naga khasaartay see yeelnaa? inaan iska xirnay taagan tahay cisbitaalkii. ilaahay meel kale ha kaa siiyaan ku yidhi. wuxuu ku daray dadka qoda, maxaan ku yidhaahdaa, qabriga waa jecel yihiin qubuur badan inay qodaan. dhakhaatiirta noocaasoo kalena waa jecel yihiin dagaalo badan inay dhacaan. iska ilaaliya dagaalada, dad badan baa ku farxaya dagaaladiinni. maxaa xiga marka tan arrintan quruxda badan? intaanoo qof oo isu timid oo ehelka ah oo walaalaha oo isku dhiigga isku dhaqanka ah oo aan ilowno marmarka qaarkood ilaahay inaan u noqonno, aan ku xamdi noqno, aan u mahad celinno. maxaa yeelay intaanoo qof aan wada hadlayno iyo soomaaliya oo dhanba looma kala turjumo, luqad shisheeyana kuma hadlaan, oo waa isku dhaqan, oo waa isku diin, oo waa sunni. saasay tahayna waxaad moodaa afrikadii kala qaybsanayd oo laisu keenay oo luqadaha badan ku wada hadlayay oo luqadihii yurub ka ahaa ay isku afgaranayeen inayna caawinayaan. waana uga mahad celinayna caawinaadooda, laakiin annaga ahayd inaan caawinno. maxaa yeelay annagii yaa isku mid ah. marka inaan ilaahay ku xamdi naqnaa la rabaa. waxaa tan xiga marka 2 midood inaan yeelno. 2 midood inaan yeelno. mid waxay tahay sidii la yaqaanay oo burburkii iyo wixii ka dambeeyey ee uu gobolkan ku jiray iyo guud ahaanba Soomaaliya, oo la kala taagnaa, oo la kala shaksanaa, oo la kala irdhoobay, oo aan la isku faraxsanayn, oo la iswada gaadayay, oo aan la isla noolaanaynin, inaan ahaano aan ku nagaano oo magaalo u gudubta aysan jirin. dhuusamareeb aysan tegi karin cadaado aysan tegi karin gaalkacyo, cadaado aysan caabudaaq tegi karin, caabudaaq aysan xeraale tegi karin, dhexdooda aan la wada mari karin. inaan saas sidaa ahaano, taasna waxay tahay cawaaqibkeeda, resultkeeda wuxuu yahay nolol la-aan. haddii mar nabad aysan jirin, nolol ma jiri karto, horumar bini aadanna ma jiri karo, dhaqaalana ma jiraayo, ganacsi ma jiraayo, iskuul ma jiraayo, isu socod ma laha, cid idin imaanaysa oo idin soo booqanaysa ma laha. iska daa dekad la dhiso iyo adduunyo kale iska daa. dowladdii aada haysataan xitaa si fiican uma shaqayn karto. waxa weeye waa hal dhinac in la yeelo oo dadka aada u dambaysaan, oo dhakhaatiirtaas aan idiin sheegayo aada ganacsiga u xoojisaan. tan kale waxay tahay inaad is ogolaataan, inaad wada noolaataan,
inaa isu tanaasushaan inaa ilaahay ka baqdaan inaa iscafisaan magaalo walba magaalada kale dadka jooga inay waali yihiin oo aan laga xigin magaaladan sidii ahaan jirtay ay dib ugu soo noqoto oo sidii ahaan jirtay Soomaali dhan baa wada deganaan jirtay dadkii oo dhan ay dib ugu soo noqdaan ay dib u noolaato dhaqaalihii u soo kaco maalgashi shisheeye u yimaado taasi waxa weeye waa wax runtii aad halkan u fadhidaan saan aaminsanahay taasaanan qaadanaynaa taasaana wanaagsan taasaana nolol noogu jirtaa taasaana ilaahay na faray taasaan qaadanaynaa ugu dambeyn haddii taas aan sameyno intaasaan sameyno macnaheedu waxay tahay dalkan waa istaagay dowlad goboleed walba sidaadoo kale noqonaysaa waxaa imaanaysa wada shaqayn dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe oo federaalka ah haddee wada shaqayn timaado khilaaf ma jiraayo waxaan la tartamaynaa caalamka marka intiisa kale yaan la tartamaynaa oo aan hubo inaad og tihiin hadda inaan ka harnay muddo 30 sano inaan ka harnay wax badan lagama horeeyo maxaa yeelay Soomaali baan nahay dad firfircoon baan nahay dad isleh baan nahay dad dalkooda kheyraad badan yaan nahay dad aqoon badan aqoon leh baan nahay dad islaam nahay dad qablaha nahay muddo yar yaan ku soo noqon karnaa muddo kooban yaan ku soo noqon karnaa caalamku waa kala hormaraa haddii hadda aan 20 kale ku darno waana laga tagayaa si aada yaan looga tagayaa aan ka daba tagi karin haddii laga tagana waa lagu gumeynayaa dhaqaalaha la isku gumeystaa xoogga ciidanka la isku gumeystaa dowladnimada la isku gumeystaa deganaanshaha siyaasadda la isku gumeystaa sida hadda aan nahay wax qurxoon maaha aniga soo madaxweynihiin maaha wax qurxoon maaha markaan madax is aragno oo hadda la og yahay dalka inuu saa u qaybsan yahay oo dhibkan u jiro iyo nin dadkiisii midaysan yihiin dhaqaalihiisii cirka u marayo dowladdiisa u shaqayso dakhligiisa u badan yahay xiriirkii ula leeyahay caalamka lagu ixtiraamo iyo aniga isku meel ma istaagi karno macnaha hoos baa lagu fiirin waxaan ahay waxaad tihiin haddaad wanaagsan tihiin anna waa wanaagsana waa intaas wey marka wixii naga hadlaabay waa naga hadlaabeen ilaahayna noqono waqti gadaal buu u badan yahay maanta yaan la fiirin yaan la oran maanta haddaan wixii waayo nin kale isu waxba helin yaan la oran inaad tiraahdo allah ku calfo walaal waa ku siiyey waa kuu quuray adna biri ii quur oo kuu tanaasulay intaas way wax lagu kala hormaro haddii intaas aan helno dalkan waa istaagi mustaqbal fiicanna wuu lahaan waxay keenaysaa marka in xiriirkeenu uu dibadda uu fiicnaado oo nala ixtiraamo iyo keenaysaa waxay keenaysaa dhaqaalo badan dalkan u yimaado oo la maalgashado iyo keenaysaa khayraadkeenna inaan u dhacno iyo keenaysaa waxaan isku haysanaa hadda waxba ma ah wax ka badan yaan haysanaa laakiin ma aragno ilaahayna nama tusin waxaan ka rabnaa marka natiijada maanta ka soo baxda meeshan oo golahan maxaa la yidhaahdaa dib u heshiisiinta ay iyo idinka aad ka wada shaqayseen natiijada aan ka rabno waxay tahay xasilooni siyaasadeed gobolkan inuu helo xasilooni siyaasadeed inuu helo dowlad wanaagna uu helo labadaas wey labada lagu kala hormaro xasilooni inay jirto oo la ismaqlo oo la wada shaqeeyo iyo in dowlad wanaag jirto musuqmaasuq laga fogaado oo ilaahay loo noqdo musuqmaasuq waa xaaraan wey waa ammaano naloo dhiibay ammaano lidin dhiibay wey haddii aad mas-uul tahay waxa kaliya oo cadaabtaa ku tagayso waa ammaanadaas haddaad ku takrifasho maxaa yeelay waxaa leh ammaanadaas lagugu dhiibay nin qof ilmo caloosha ku jira nin dhagala nin indhala nin aan hadli karin nin aan gaari karin nin xanuunsan ama qof xanuunsan yaad u haysaa marka haddee adduunka hor u marayna dhaqankaasay leeyihin waxay nooga hormareen wax kale maaha waxay iska ilaaliyaan ammaanaday iska ilaaliyaan qof walba mushaharkiisa ma dhaafo ma aado qof kale jeebkiisa iyo qof kale wixiisa ma raadsado
wixiisu iimaansadaa waa inta diinteena subanayna farayso dowlad wanaag ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inaan uga gudub natiijada midnimo in gobolkan runtii dhibka badan soo gaaray oo aad loogu dagaalay dad badan ay ku baxeen dad badan ay dhaawac ku yihiin ilaa hadda in la mideeyo shacabkii la mideeyo oo qofkii qof dila qabiil ma aha waa shakhsi laga yaabo inuu waalan yahay laga yaabo inuu criminal yahay oo qaatil ah ha la marsiiyo waxa uu qabo sharciga marka ha la marsiiyo yaan la qarin maxaa yeelay qof kale oo aan waxba galabsan yuu dhibkii gaari community oo dhan iyo ummad oo dhan yuu dhibkii gaari qofka sharta wada hal iska fogeeyo nabadda in laga shaqeeyo haddii ummaddu aysan nabad haysan horumar ma gaari karto marka nabadda in laga shaqeeyo oo idinka farta laydinku soo fiiqo aad tirahdaan annagu siduu professorkii shirwac sheegay nabaddaan u istaagnay ilaahna u noqonnay inaad tirahdaan ugu dambeyn waxaan rabaa halkan in aan shahaado sharaf ku siiyo dad runtii mudan oo shaqo wanaagsan runtii geliyey galmudug sidai ay tahay